بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال halka aad naga daawanaysaan waa telefishinka qaranka Soomaaliyeed oo xilligan idinkaga imaanaya wadankaasi Poland qaasatan caasimadda wadankaas ee Warsaw daawadayaal waa barnaamijkeennii codka jaaliyadaha oo aalaaba aan ku soo qaadano doorka qurba joogta Soomaaliyeed ay ka qaadan karaan dib u dhiska wadanka Soomaaliya gaar ahaan qurba joogta Yurub iyo adduunka dacaladiisa guud ahaanba daawadayaal barnaamijkeena maanta waxaa marti iigu ah aqoon-yahano Soomaaliyeed dad Soomaaliyeed oo muddo badan deganaa wadankan Yurub wax badanna ka qabtay guud ahaan meelaha ay degan yihiin sumcad iyo sharaf badanna ku leh haddaba barnaamijkeena qaaska maanta waxaan la wadaagi doonaa oo barnaamij gaar oo aan la wadaagi doono fikirkooda iyo guud ahaanba xaaladda wadanka uu ku sugan yahay iyo sida wax looga qaban karo iyo sida guud ahaanba wadanka dhismihiisa ay uga qayb qaadan karaan daawadayaal dadka maanta martida halkan iigu ah waxay ka kala yimaadeen wadamada Finland, Holland, Poland dabcan barnaamijku waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Cabdicasiis Goodax dabcan waxa barnaamijka igala qayb qaadan doona maanta afar aqoon-yahan sidaan horeba idinku sheegay aqoon-yahano Soomaaliyeed ah aqoon-yahanadaas waxay kala yihiin Cabduqaadir Gabayre oo wadanka Poland degan sidoo kale waxa igala qayb qaadan doona barnaamijka Cabdirasaaq Cabdi Shukuur oo isagana ka yimid wadankaasi Holland sidoo kale barnaamijka waxaa igala qayb qaadan doona Cabdi Fataax Janna Gale oo isagana wadankaasi Finland ka yimid sidoo kale barnaamijka waxaa igala qayb qaadan doona Saciid Jaamac oo isagana aqoon-yahan wadanka Finland ka yimid ah kusoo dhawaada barnaamijkan codka jaaliyadaha dhammaantiinba su-aasha ugu horeysa oo aan raba inaan weydiiyo waxa ay tahay waxa maanta marti halkan loogu yahay oo meesha aan ku sugannahay waa wadanka Poland sidaan hore idinku sheegay waxaana marti aan u nahay oo halkan nagu soo dhaweeyay gudoomiyaha dalada Soomaaliyeed ee wadankan dabcan Cabduqaadir Gabayre waxaan rabaa marka gudoomiyaha Cabduqaadir Gabayre inaan su-aasha ugu horeysa weydiiyo guud ahaan doorka jaaliyadaha oo ay ka qaadan karaan dib u dhiska wadankii sidaad u aragtaa bismillaahi raxmaani raxiim horta marka laga hadlayo jaaliyadaha jooga qurbaha Soomaaliya ka jooga annagu waxaan haddaan reer Poland nahay jaaliyada ugu yar baan filayaa ama ku ugu yaryarba tirada markii la yiraahdo hase yeeshee dhinaca kale markaad eegto tabarteenu waxayna gaarsiisay inaanu jaaliyadaha kale ee walaalaheena wadamada ku nool aanu ugu yeerno waxqabadkeena aanu ugu yeerno sidii aan wax u wada qabsan lahayn jaaliyada Soomaalida haddaan ka soo qabto taan ka warbixin ka bixin kara waa jaaliyada Poland oo dhowr 20 qof dad halkan ku nool oo aad u raacsan aragti gooniyana ka wada leh sidii wax loo qaban lahaa dalkeena sanadkii hore markay ahayd bisheedii 19 bishii hore sanadka ayaanu kulan anagii reer Finland aanu ku casuunay magaalada Poland ku yeelanay oo isku soo hadal qaadnay inaanu samayno fikrad midayn aragtida jaaliyadaha ku nool waxgaradka jaaliyadaha ku nool qurbaha siiba Yurub inaanu isku dayno inaanu isku soo dhaweyno aanu tusno ama aanu isla meel dhigno sidii aanu wadankii maadaama uu xasiloona ay ka bilaabatay dawladna ay ka dhalatay meeshii inaanu garab istaagno wax la qabano waxna ku kordhino waligeena jaaliyaduhu iyaga Soomaaliya taageeri jiray waagi dhibaato u jirtay iyaga ayaa lacagta u diri jiray haddana inaanu bal technology iyo cilmiga aan baranay inaanu ku ekaana aan gudbino fikradii waan soo hadal qaadnay waxa ka dhashay fikradaas ahayd inay reer Poland anagoo danahay dadka wadanka ku nool aanu casuunay ilaa 6 dal aan u fidin casuumaad inay soo diraan laba qof oo anagu aanu noqon dadkii marti gelinayay si arintaas aanu meel isla dhigno hase yeeshee balanteedu waa October ama way dhici ama dib ay u dhacaysaa laakiin ilaa hadeer tan waxay kamid tahay qayb kamid ah marka wax qabadka markaanu eegno reer Poland haddaan ay tabarteenu inta la eegtahay waxaanu isku daynay anagoo aan islaana waad ugu tabareertiin waad u dhaqaale yartiin waad ugu dad yartiin dhinac kastaba
oo isu aragna inaan qabiil laangaab ah markii la Soomaalida dhaqankeeda ilaa tirada waxa la isku tiriyo waa tirada waxaanu hadda wadnaa qorshe ah sidii aanu Poland teknolojigeeda dhaqaalaheeda aqoon-yahankeeda aanu Soomaaliya u geyn lahayn si Soomaaliya uga faa'iideystaan waxaa ka mid ah hadeer waxaan qorsheynaynaa in aan baarlamaanka Poland iyo wafdi Poland oo rasmi ah dawladda inuu tago Soomaaliya dawladda qaabilo in parliamentarianka Soomaalidu nimanka baarlamaanka ku jira ay Poland yimaadaan experience loo furo waxaan qorsheynaynaa inaanu shirkado dhismo geyno oo aanu geyno niman engineer ah geyno niman macallimiin ama masters ku leeyahay oo tababara dadka waxaanu isku dayaynaa wadanka inaanu uga helno dhaqaale lagu kabayo lagu dhisayo Soomaaliya taas marka waa mid guud oo tabar ahaan ay noo gaarsay waxaan rajaynayaa walaalahay ama Finland ka yimid ama Holland ka yimid inay iyagu inta ka xoog badan yihiin oo aanu isleenahay iyagu inta marka idinku qabateen iyaguna waxay qaban doonaan wadanka malaha bar iyo lababa iyaga dhisi doona marka fikraddu horta taas ku bilaabatay waan ku faraxsanahay imaanshahooda aqbalada ay aqbaleen casuumadeena waxayna tahay runtii sababka keentay maartay inaan bal talaabada tusno ama iyaga uga dayano haday noogu horeeyeen Cabdirasaaq Cabdishakuur adiga isla su'aasha sadiyaan bismillaahir rahmaanir rahiim markuu ugu horeysa waxaan u mahad celinayaa walaalkay Cabdiqaadir Gabeere oo nagu casuumay wadankan Poland runtii oo ah wadan kooban oo yar dadkiisana Soomaaliya degan ay aad u yar yihiin laakiin qabtay hawl fiican oo bilaaw hadda suubiyay runtii qurba joogta dabcan way muuqataa Soomaaliya saameyn ku leeyihiin ilaa hadda nolosha qaybeeda kala duwan ka qayb qaateen dad badan oo qurbaha ka noqday ganacsi ahaato siyaasadda ahaato aad ay uga muuqdaan laakiin fikirkan ah in dadka jaaliyadaha la isku keeno la mideeyo oo shaqooyinkooda la mideeyo waa fikir aad u wanaagsan waana soo dhaweynaynaa waana fikir runtii aan ila fiican marka waxaan mahad labaad ugu mahad celinayaa walaalkeen Cabdiqaadir Gabeere fikraddan hadda uu keenay oo ah in dadka bal Europe joogo inay sarkaan in bal maxaa laga qaban karaa wadankii laga wadaago fikirkii uusan noqon qof walba intuu Europe ka tagay ama qurbaha ka tagay intuu iska noqdo boorsiis iska qaato oo yiraahdo intuu meelaha fiiriyo u dhahan waxaasaan wataa laakiin dadka inay sarkaan bal maxaa wadankeeni maxay tahay baahida jirto maxaa wadankii baahida rasmiga ugu daran maxay tahay lees arko baahidaas intii laga wada sheekayso baahidaas hal si guud ahaan ama ayadoo fikir hal fikir la wada haysto la wada wajaho fikir fiican waa marka waana mar labaad waa ugu mahad celinayaa dabcan waxaan u soo jeesanayaa markan Cabdifataax Janna Gale iyo Saciid Jaamac dabcan Cabdiqaadir waxa uu ka dhawaajiyay in ay yihiin jaalidaha ugu yar wadankan wadamada Yurub halkan ka jira dhinaca kale markaan ka fiirino Finland iyo waqooyiga Yurub Soomaali badan ayaa sameeyay soo gashay idinka door intee la eg reer Finland iyo dhammaan guud ahaanba Scandinavianka iyo waqooyiga Yurub ayaad arrimahan horumarka iyo dibudhiska wadanka aad ka qayb qaadataan sidee soo aragtaan su'aashii aan weydiiyay Cabdiqaadir iyo Cabdirasaaq baadinkana bismillaahir rahmaanir rahiim salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka hore waxaan rabaa halkan inaan salaan uga diro dhammaan daawadayaasha bulshooyinka Soomaaliyeed meel walba ay joogto tan labaad waxaan rabaa sidii walaaladii iga horeeyay ay u sheegeen inaan u mahad celiyo runtii Ilaahay weynaa ka sakow walaaladii fikirkan ka shaqeeyay oo ay ugu horeeyaan Cabdiqaadir iyo Cabdifataax oo ayagu ahaa niman odayaal oo ishelay oo arrinkan ka wada shaqeeyay aniga magacayga waxa la yiraahdaa Saciid Jaamac Guuleed waxaan deganahay wadanka Finland oo dhowr iyo 20 sano u dambeeyay 90kii dadkii yimid baan ahaa kadibna waxa aan nasiib u yeeshay runtii in aan Soomaaliya oo burburka inta leeg uu gaaray aan u helo fursad aan kula shaqeeyo dabcan qodobka hadda laga dhawaajiyay oo ah diaspora iyo wax qabadkooda anigu waxaan u shaqeeyaa hay'adda IOM oo aad wada garanaysaan waa hay'ad caalami ah oo inta badan hawlaheedu ay ku xiriiraan arrimahan migrationka iyo developmentiga projectiyo iyo mashaariic fara badan oo loogu talagalay dadka qurba joogta ah gaar ahaan kuwa aqoon-yahanada ah si ay wadankoodii dib ugu noqdaan oo ay uga qayb qaataan dib u dhiskii wadanka ayaan la shaqaynayay intii muddo ahba mashaariicdaasi oo ah mashaariic kala duwan
oo ay wada garanayaan dadka qurbijoogta ah ee aqoon-yahanada ah in badanna ay ka faa'iidaysatay oo ay u heleen fursad ay waddankii dib ugu noqdaan dibudhiskiisiina ay ka qayb qaataan dabcan micnuhu waxa weeye in aqoontii iyo wixii aad ka baratay intii aad qurbaha joogtay aad qaado ood waddankaaga uga faa'iidayso Soomaaliya waxaan la soconnaa 20kii sano ee burburka ku jirtay in waxa badbaadiyay runtii ay ugu horeyso bulshadii ka soo qaxday qurbijoogta noqotay ee diaspora oo ayagu mar walba waddankooda aan iloobin oo ku xirnaa maanta waddankii dawlad buu leeyahay caalamkii wuxuu u soo jeestay in la taageero dawladdaas iyo shacabkii Soomaaliyeed oo intii muddo ahba ay jirtay kala daadsanaan weyn iyo nabadgelyo xumo taasa marka waxa ay fursad siinaysaa in maanta magaaladan Poland waddankan Poland caasimadiisa Warsaw oo aan joogno saaka aan uga wada hadalno annagoo ka kala nimid magaalooyin kala duwan oo Yurub ku yaala in badan oo aan halkan joogin ay la socdaan hawsha maanta halkan ka dhacaysa inaan ka wada hadalno bal hawsha ay diasporuhu iyo dadka qurbijoogta leeyahay waddanka ka qabanayaan sidee ku noqon kartaa hawl miro dhasha oo very effective kala qaybsanaanta runtii Soomaaliya ku dhex jirta gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed na looga saari karaa qof walba oo Soomaaliya waxa uu 100% doonayo waxa weeye inuu waddankii ku soo dabaalo nabadgelyo horumar uu gaaro lagana tago dibadda iyo qurbaha la joogo laakiin waxa muuqata haddana in kala qaybsanaantaasi ay keento in wixii la rabay in la qabto ay noqdaan wax qabiyo ah oo dhameystirnayn taasa marka waxay kaliftay inaan laga fikiro frame ama tool ama qaab loo mobilize gareyn karo dadka aqoon-yahanada ah dadka ganacsatada ah kuwa jecel inay waddankoodii dib ugu noqdaan wax qabadkoodu uu noqdo mid midaysan waxyaabaha marka aan rabo inaan toos u macnaha u abaaro anigoo isu arkay inaan khibrad weyn u leeyahay hawshan dadka qualified-ka oo experts-ka ay waddanka dib ugu noqonayaan runtiina fahansan si wanaagsan dhibaatooyinkii caqabadaha hortaagan oo dhan in marka hore loo baahan yahay in la helo jaalido midaysan oo wada fariisan kara oo dadka macnaha jaaliyadahaasi iyo community-daas Soomaalida ah oo qurbijoogta ah hoggaankeeda ah amaba active-ka ah amaba aqoonta ehelka u ah inay inta wada fariistaan ay waxa ay sameynayaan ka sii wada fikiraan si markaas ay laba arrimoodba u dhiirigeliso number 1 waxay dhiirigelinaysaa wixii ay qabanayeen oo ay u qaban karaan si weyn oo ballaaran oo muuqata tan labaadna waxay dhiirigelinaysaa dawladaha lacageeya mashaariicda Soomaaliya laga bixinayo oo laga doonayo inay garab istaagaan financially marka ay arkaan jaaliyada Finland Holland Poland Sweden UK oo codsanayo hal projectiyo weyn oo leeyahay waxaan waddanka in la geeyo amaba dhowr projecti kulligood waxa ku filan very simple inay sameeyaan contribution yar si marka wax weyn loo qabto haddii kale waxay noqonaysaa wax yar oo qof walba uu shaxaad ku keeno in waddankii la geeyo at the endina ku biyo shubta ama corruption ama gacan qaldan marka si taa looga hortago in dawladdiina loo sameeyo access wanaagsan oo ay kula shaqeyso international community-gi diasporuhuna ay u noqdaan dad professional oo ayaguna midaysan oo hadafkoodu yahay waddankooda inay qabtaan marka waxaan arkaa taas in loo baahan yahay walaalada hawshan bilaabayna ay hadda guda gali doonaan sidii ay u raadin lahaayeen jaalidaha kale oo Yurub iyo ilaa America hadii la heli karo laakiin bal horta intaan isu dhow in la isu keeno bal Nordiga iyo Central Europe ilaa Holland ilaa iyo intaas bal horta in annaga wax intaan isla keeno hadhowna loo sii gudbo fayskii labaad oo in la raadiyo kuwii kale waa maasantii bismillaahir rahmaanir rahiim waad kuma saddex abqaad markasta si fiican noo soo dhaweysaa arrinkan xaqiiqdii wuxuu ahaa arrin Soomaalida Poland iyo Soomaalida Finland ee aragtay in wax maanta dhibka Soomaaliya gaaray waxa ugu weyn ka maqan ilaa hadda dhibaatada si dheeraynaya tahay dadka qurbo joogta oo la filayay inay ayagu waddankooda wax u qabtaan maadaama ay dhibka ka badbaadeen ilaa haddana wax qabanayaan laakiin wixiina inay noqon wax natiijo leh maxaa marka sababay waxaa noo soo baxday aan aragnay inay dhibaatadooda tahay in dadka qurbo joogta ay tusaale qalad ay geeyeen wax waa qabteen oo shakhsiyad baxay waa jira waddanka tagay aqoontiisa geeyay dhaqaalihiisa geeyay laakiin waxay markaas ku tagi jireen ayagoo shakhsi socda ah oo marka ama ku degaya ama u tagaya meel asiga uu aaminsan inuu ka soo jeedo
uma bixtirin inuu nin Soomaali yahay marka marna ma dhicin dad Soomaali wada socda midaysan oo Soomaalinimadu ay u tahay qabiilkoodu yahay Soomaali marna ma dhicin inay israacaan ay tagaan wadankii marka waxaan annaga aan noqonayba dad si ololiyayba kala qaybsanaanta Soomaalida dadka Soomaaliya jooga marka annaga roolkeen wuxuu ahaa maadaama dadkii dhibaato ku habsatay dhibaatada ahayd mid qabiileed dadku ay dhibaatada qabsatay in innaga aan noqono dad marka horeba arinta joojiya annaga aan halka ka bilowno qurub joogta mideynta Soomaalinimada anagoo marka wada soconnaa aqligeena iyo aqoonteena iyo dhaqaaleena oo anagoo wada jira wada soconnaa inaanu tagno meeshii marka ma dhicinta shakhsiyadan baa tagay mar walba marka taas ayaan waxu aragnay dhibaatada ugu weyn tahayba wax qabad waa la qabtay dadka qurub joogta way taga wadankii laakiin wax natiijo weyn kama soo saarin marka ciladaas ahayd marka waxaynu go'aansanay bal aynu bilaawno hadirtaan aynu raadino Soomaalida aqoonta leh maskaxda furan ee aaminsan Soomaalinimadu qabiilkoodu inuu yahay Soomaali inuu aruurino inuu ka bilaawno kuwa Finland iyo kuwa Poland nasiib wanaag Poland Soomaali badan ma joogto waa 10 ama 20 filaya marka waxay ayagu fursad u heleen marka inay dibka inta badan Soomaalidu dhexdooda qabata markay meeshii ku badan yihiin inay taa aysan ayagu ku dhicin 20 Soomaali isfahanteen noqdeen oo marka dadkoodii wax u raadiyay way heshiiyeen jeelada weyn bay samaysteen wadankooda wax u qabteen xiriirka waxay isku xireen Soomaaliya iyo Poland meelo badan wax geeyeen laakiin Soomaalida kale wadamada kale Yurub jooga ama qurbaha garabada jooga wadad aad u badan bay noqdeen marka dibka Soomaaliya ka jiray baa ayagan dhexdooda jira marka waxaynu xulanay marka Poland hayno noqoto centerkii maadaama Soomaalida ku yartaa dibkuna marka ku yaraanayo inuu raadino marka Soomaalida Finland odayaasha dhalinyarada dad kala duwan baynu Finland keenay Yurub Poland baynu soo kaxaynay sanadkii hore bishii 9aad marka in la sabarto fikirka la iibiyo in inagoo wada soconna inuu Soomaaliya wax qabadka aynu ka wada qayb qaadano in dhicin shakhsi iska socda kaligiisan meesha aysan nimaan mar kale waan ku guuleysanay sanadkan waa sanadkiisii labaad weey hal sano ka soo wareegtay hadda rag waxa nagu soo biray Soomaalida Holland marka waxaan qorsheynaa marka inaynu taa aynu ka dhabayno waxaynu go'aansanay wax la yiraahdo Somali Diaspora Solidarity Movement inaynu sameeyno dad wada socda Soomaaliya oo hal waji leh oo aqligoodii dhaqaaladoodii aqoontoodii Soomaali ku jiheynaya inuu abuurno marka horeba marka hadda waxa maada noo balansan Soomaalida degan dhankan waqooyiga Yurub Sweden Norway Denmark iyo Finland oo wada socda marka hore marka aynu ku darno Holland Ingiriiska iyo Poland inaynu kulan samaysano hadda waxaan noo balansan sanadkan cusub ee dhalanaya horaantiisa inuu inta ay kulmaan jaaliyadaha dadka marka maamulka haya inay soo aruuriyaan dad wax ku ool ah oo Soomaali ah mowqifkoodu inuu yahay Soomaalinimo inay isu yimaadaan halkan aynu kulan ku samaysano marka looga wada hadlo marka si wada jir ah anagoo wada soconnaa aynu wadankii u aadi karnaa wax ugu qaban karnaa marka la joojiyo kaliya la aadayay meesha hadda tusaale ahaan waxyaabo badan waxa jira hay'adan IOM dhalinyarada walaalkeen Saciid uu ka shaqeeyo Finland isligoodu yahay inay ku guuleysteen dadka aqoonta leh inay wadankii ku celiyaan oo dhisaan marka waa lagu guuleystay xaqiiqda dhulkan waqooyi bariya Puntland ma taqaanaa loo yaqaan hadirtaan dhulkan waqooyiga Soomaaliya Somaliland hadirtaan la baxay in ay dadka Soomaalida aqoonta la geeyo waa lagu guuleystay xaqiiqda haddana waxay rajaynayaan ay qorsheynayaan inay si weynayaan oo balaariyaan oo laga dhigo Soomaaliya la geyn karaba ilaa iyo xamar Kismaayo beedhaw meel la geeyo marka kuwa qorood inaan ka faa'iideysano annaga aan linkiga ku xidhno aan ka dhigno marka dad Soomaali wada socda dadkooda aqoonta lahaa dadkoodii diinta yaqaanay dadkoodii mataqaana dhaqaalaha hayay in ayagoo Soomaalinimo u socday tagaan wadankii marka taas ayaa annaga qorsheyn yahay haduu ilaahay dhaado mid kale ugu meeysan waxay tahay inaan abuurno annaga wadamada aynu joogno Yurub aynu annaga degannahay in dadkooda wadanka ay dhaqaalaha leh shirkadaha inuu annaga aan kala dhicino inay maalgashtaan wadankeena haddaynu annaga ismideyno waynu midowga noocan sameeyno waxaan ku guuleysanaynaa in dadkeena aan ka xayno dadka dawladda aan la joogno inay maalgashtaan wadankii haddaan arkaan dad isla socod doonu nahay Soomaali wada socota oo aqoontooda dadka aqoonta la ku jiraan way aaminayeen marka inaan dawladana la shaqeeyno dawladda maanta jirta wadankeena ay ka curatay fursad baa Ilaahay noo siiyay dawladda noo dhalatay intaas sano waxaan ahayn bilaa dawlad in la garab istaago innaga marka laakiin u garab istaagayna dadkan shakhsiyada baxay ayaga dana gaar raadsanaya ee aaminsan inay u tagayaan qabiladooda u gaarka inta la joojiyo inuu wada socona in wadankeena inuu tagno inuu annaga waxba ka doonin ayaga laakiin ayagu wax gelinay oo kaliya inta badan waxa taga dad ayaga wax doonaya wadankii qurbo joog ayaga wax raadsanaya aade waxa annagoo waxna raadsanayno annaga doonin dadkeena wax u qabanno dawladdeena garab istaagno
weli dadka wax ku oolka ee wadamada qurbaha jooga ay wax qabsaday wax gudbin kara in la aruuriyo muhiim ah marka taas anaga noo ah natiijada aan raadinayno waxaan rajaynayaa inaan ku guulsano haddii la yiraahdo dabcan waxaa laga dhawaajiyey arrimo aad iyo aad u tiro badan waxaa laga dhawaajiyey aqoontii inay jirto waxaa laga dhawaajiyey diasporaha inay wax qaban karaan waxaa laga dhawaajiyey in maaragtay wadankii dad diaspora ay tageen oo wax qabteen waxaa laga dhawaajiyey inay diasporaha dhibaato badan keeneen waxaa laga dhawaajiyey diasporaha inay maaragtay siyaasad iyo xukun doon iyo waxyaabo badan ay jiraan dhinaca kale markaan fiirino arrintan arrin sahlan maaha cabdiqaadir gabeer waxay u baahan tahay dhaqaale waxay u baahan tahay juhdi waxay u baahan tahay waqti wax walba sidee intaas loo heli karaa ayaad isleedahay bismillahi raxmaan raxiim horta nimanka siyaasiyiinta waxay caan ku yihiin markay yidhaahdaan waxaas yaan la samaynin waa inay keenaan alternative haddaadan qofkuusan fikradda waxa beddelkeeda ama wax qalad u arkaya saxiix hadduusan keeni karin arrinta maba inuu ka hadla maaha horta fikraddan markay bilaabatay sanadkii hore Poland annagoo dan reer Poland ahay fikradda badankeed afkeeda hore annagaa keenay dhammaystirkana reer Finland baan la qaatay waxaanu ku talagalnay dhaqaale waxaan ogaaday horta marka hore maadaama markaan arkay meesha aan ka joogo Poland gudaheega dawladda ahaato dadka maaragtay waddanka lacagta laha ahaato aan keligay anigoo ah intaasoo shay aan isleeyahay soomo waddankaagii baad geynaysaa waxaa ii timid ah inaan u baahanahay haddaan ka bato inaan ka badan geyn karo macnaheedu ay tahay haddaan helo Finland haddaan helo Austria haddaan helo Ingiriiska haddaan helo Jarmalka haddaan helo dadkoo dhan haddaan xoog u helo inaan ka badan geyn karo weliba aan anigu gaaray noqdada ah Brussels haddaan damcaynaan maanta wax ka helno inaan ka heli karno haddaan isla jirno maxaa keenay markaa waxaa timid marka maadaama fikradda ay naga timid maadaama aan gurigeena annaga aan joogno martaan nalagu aha aan fikradda ku keenay inaanu annagu aanu keenno talaabada u horeysa oo ah maalgelinta tigidhada dadka imaanaya dejintooda inaanu keenno inaanu diyaar garayno xataa tusaale sidaan u shaqeyno sidaan ugu dhex jirno dawladda sidaanu wax qabad ugu aragno inaan u geyn karno Soomaaliya waxyaalahaas oo waxyaalaha keenay haddaba dhaqaalaha waxa ka socodsiinaya sida lagu keeni karaa waxaa weeye haddii afkeedii hore aanu helno qadiyada oo aanu isla garanno inaanu nahay dad wax qabsan kara ummaddu way kuu soo istaagaysaa waa xaqiiqataasu waxaan hadda tusaale maanta IOM oo maalgelinaysa dadka inay celiso haddii annagoo kontonnina oo waxgarad ah oo takhasusaad ama kala duwan wadanna doonayna dalkeenna inaanu tagno hay-adaha la aasaasayo haato wax ku soo kordhino waxaan ka helaynaa dhaqaale European Union hadaan ka helaynaa cid walba oo aan weydiino waan ka helaynaa dhaqaalo ku saabsan mashruuca noocan soo kala su'aashu waxa weeye in annagu aanu helno jaaliyadaha marka la lafteeda Soomaali waan naqaanayo kii soo fariista kala wuxuu leeyahay mathalan aniga wadabaacad baan leenahay laakiin macnaheedu annaga uma jeedno 3,000 30,000 2,000 oo degan wadan inay kulligoodna soo wada raacaan maaha saan ka arka anigu waxaan ka arkaa waxa weeye inta wax garata ee arkaysa Soomaaliya maanta inay wax geyn karaan una baahan tahay tacliintu soo bartay rag jaamacad ku dhameeya jooga oo PhD haysta laakiin aan la ogeynba oo haddii maanta Soomaaliya lagu celi waxtar lahaa ragga noocaas oo kala ayaan u aragnaa jaaliyaduhu inay ka kooban yihiin laakiin nin 20 sano hadda ka joogo oo kale Europe meel ka joogay oo 20 sano meel qaad ku cunayay oo 20 sanaba aan ka harayba tareenkii socday ee horumarka adduunka Soomaaliya wuxuu korin maayo marka dadka annagu aanu object ka noo ah oo noo ah tusaalaha waxa weeye waa dadka Soomaalida ah ee jaaliyadaha wadan ku nool ee wax bartay ee arki kara inay wadankeena wax ka qaban karaan waxna geyn karaan cusub ilaan tagiddu macna ma kuma fadhido cid walba waa noqonaysaa Judda laga noqonayaa oo Nairobi laga noqosho dib ma laha laakiin maxaad wadankii geynaysaa way saadaradeed maalmaha kamid ah waxaan geeyay wasaaradda arrimaha dibadda nin Soomaali ah oo diaspora rag baa ila tagay introduction waan baray waxaa cadaatay tixgelin in aan leeyahay siiyay iyagana la siiyay loona muujiyay in la doon inay tahay arrintan arrin aad u wanaagsan wax la qaban karo that means macnaheedu waxa weeye dhaqaalna waa loo heli karaa waxaa loo heli karaa capability xitaa lagu wado kaliya waxa weeye inaanu sanadkan gudihiisa ama sanadka cusub bilowgiisa helno ugu yaraan 5-6 wadan oo ay ka yimaadaan
ma aha dadka aan doonayno jaaliyadaha midba mid intuu daba maray uu leeyahay kan waa reer hebel waxba qaban maayo kan waa tumi dadka wax bartay dadka wax kala garanaya ee doonaya inay dalkoodii inay wax ka qabtaan lacna dad ay wax ku darsadaan inaanu jaaliyaha u soo ururino horta haddii la helo waxaan qabaa in la heli karo dhaqaalaha cabdirasaaq cabdishakuur adiga aqoon-yahan dhallinyaro ayaa tahay dabcan barnaamijkan hadda la wadana ku soo biiray sanadkan fikradahan sideed u aragtaa maxaase isleedahay hal iyo labo waa lagu horumarin karaa waa mahadsantahay runtii waxaan isleeyahay fikraddan waa fikrad fiican aad u qurux badan maxaa yeelay dadka haddaysan iska warqabin oo la wada sheekaysan oo la ogaanin baahida jirta maxay tahay maxaa waddankii u qaban karna haddaan las dhihin naftigeeda waa dhib runtii waxaa lagu horumari karaa ay la tahay aniga horta marka hore in dadkan ay sarkaan ay midoobaan dadka wadamada kala duwan oo Yurub ka imaanaya inay sida hadda aad bilaawdeen fikirka ay bilaabeen walaalaha Saciid Cabdiqaadir ay bilaabeen waa in dadkaas horta la kulmiyo fikirka la isweydarsado marka ugu horeyso runtii Soomaali badan waxay ku nooshahay dibadda oo shahaadooyin haysto sare wax ka bartay wadamadan active-ka ah wax ka qabtay marka dadkaas raba inay waddankoodii u noqdaan wax u taraan in marka hore xataa informationkeeda la haayo la aruuriyo oo database laga aruuriyo qof walba muxuu bartay la qoro oo haddii la yiraahdo berri waddankii waxaan u baahanahay intaas oo dhakhtar leeyahay wala dhakhtar hebel meeshaas oo jooga adreskiisa ahaynaa hay diyaar ma tahay mashruucaas laga baahan yahay naftigeeda in laga wada ogaado horta informationka waa wax ugu muhiimsan informationkaas horta in la haayo waxa laga yaabaa hadda in qofkii la leeyahay hadda tag laakiin la haayo hay diyaar ma tahay waddankiina ku noqotid berri waxaan u baahanahay adreskaada waxaan u baahanahay haddii lagu baahdo berri waxaan ognahay inuu dhakhtar hebel joogo ama waddankaas waddan ka mid ah Yurub uu joogo ama anywhere adduunka meesha uu joogo ahaato Australia meesha ahaato ama wadamada kale marka waxaa lagu horumari karaa dawladda naftigeeda inay ay suubiso dadka aruuriya dadka qurba joogta ah inay u suubiso hay'ad ama meel ay ku kulmaan u suubiso informationkaas aruuriya gudaha waddanka marka xataa dawladda inaan ku bushkareyno ama inaan tusno inay sameeyaan dadkaas u suubayaan meel xataa ay isku kulmaan informationka isku wadaarsadaan dadkaas lagu qoro dadka raba in xataa dawladda ay u baahato maanta intaas oo injineer aan u baahanahay hay la weydiisto maxaad noo heli kartaa injineer dhakhtar aan u baahanahay waxaan u baahanahay dad aqoon maamulka yaqaan aan u baahanahay dad oo bangiyada yaqaan aan u baahanahay waxa jira dad oo si fiican u yaqaan wadamada jooga marka in informationkaas la wadaarsado macluumaadkaas la wada wadaagsado lana ogyahayba meeshaan u raadinayno berri haddaan u baahano runtii waxaas waxaa lagu horumarka in marka hore annaga aan horta aan saarno oo midowno kadibna aan ula tagno mashruuc dawladda xataa lagala hadlo sidii ay u horumarineed ama hay'ad u soo bilhayd kulmiyo dadkaas Muqdisho uga soo biso meel oo dadka ama gobolada dhanba Soomaaliya in loo soo biyo meel dadku soo degaan information isku wadaarsadaan si waddankii dadka loogu noqdo wax loogu qabto daawadayaal dadkiina inta hadda nagu soo biirta halka aad naga daawanaysaan waa telefishinka qaranka Soomaaliyeed SNTV waa barnaamijkeena codka jaaliyadaha oo aan xilligan idinka soo gudbinayno waddankaas Poland caasimadiisa Warsaw Cabdi Fataax haddii aan adigu ku weydiiyo October waxa aad ku leedihiin halkan shirkii sanadkii koowaad oo idin dhamaaday kii labaadna idin bilaabanayo ajendaha ugu weyn hal iyo labo ajendaha horta ugu weyn annaga ajenda gaar horta aan leenahay ma jirto wax kaliya markaas aynu raadinayno sidaynu shaqadan u abuurnaa waxay ahayd aan horena aan ugu dhawaajiyay in la helo Soomaali qurba joog ah midaysan wada socota oo dadka walaalahooda maanta dhibaatada habsatay intaas sano dagaal sokay ka socday hadda fursad helay dawladdu u dhalatay wax wanaagsan oo tusaale noqon kara u gudbin kara waa intaan ajendadeena dawladda marka waxa dadaalkana sugay ama hawshan sugay waxay tahay sidee ku heli karnaa dad Soomaali ah oo fikirka aaminsan oo qurba joog ah inta badan waan aragnay dad badan oo yaacay waddanka tagay waa jira oo shakhsiyad ay dano gaar ku yaacaya oo danooda gaar raadinaya Soomaalidu qurba joogtan ayagu way istaqaanaa wadada shaqaan inuu nahay haddana reer Finland baan nahay 24 sano waddanka joognaa aniga Saciid isku waqti inuu nahay Soomaalidu Finland way istaqaanaa marka ninka Soomaaliga ahaa ee Soomaalinimadii u weyneed weligii Soomaalida ka shaqeyn jiray way taqaanaa qofku yahay ay kuway qabyaaladda iyo qoran ka shaqeyn jiray dad is yaqaanuna anaga Soomaha marka waynu heli karnaa marka ninka Soomaaligu nadiifka oolka inta sano asturna door sana asana wax qabsaday
wax tari kara waa garanaynaa in anaga aruurino dadka noocaas oo kale ah Poland sidoo kale Holland sidoo kale hatta haddii la helo markaa inuu aamino waa isu keeni karnaa marka dad Soomaali nadiif ah marka dadka ayagaan sheegayo markaa qurbaha joogayna waa dad markaa waxay noqdeen afka la qabtay ana marginalized lagu sameeyay marka in fursad inuu siino fursad la siiyo waa daruuri haddana annaga fursad siinna kuwan yaacay aan ognahay qabiilada si horunayo baa meesha dawladdu joogayba dawladana dawlad ka soo timaadtan iyo mid kalena waligood ma taageerayaan ilaa dad dana gaar raadinayay awal wadamada joogeen qurbihii bay xumaan iyo qabiilada ay la joogeen marka annaga marka waajibkeenu yahay annaga mas'uuliyadna saaranta anigu macnaheedu ma in annaga aan isku shaabadayno annaga dad nadiif ah dadku ayaga is garanaya annaga filan diganahay Soomaaliya filan wayna taqaanaa waxaan u nahay marka qolo walba inta nadiifka is garanaysa inay is aruursato isu keento marka ay mowqif wada dhan yihiin wada aaminsan yihiin qabiilkoodu uu ahaado Soomaali tusaale aan u noqonayna dadkina Soomaaliya jooga dadkan anaga inay sugayaan waxay sugayaan waa inagaba inay anaga aan u keenno tusaale wanaagsan haddayna arkaan anagoo wada soconna ee Soomaali wada ah oo nin walba Soomaali ku jiro waxaan aaminsanahay in ayaga qaadanayaanba wax badbaadi ilaahay dadka masaakiinta rag baa afka qabsada mar walba shaat u soo xidha qaar aqoon bay shaar aqooneed u soo xirtaan qaar shaar diimeed u soo xirtaan qaar macna wixii la doono qaar shaar qabiilada u soo xirtaan waxa wanaag ay ka talanayaan ma jiraan ilaan tusaale waxa ah afraad sano ay waddankan burbur ka jira waxa ilaad ka soo baxay ma jiraan marka waa daruuri waa waqtiga saxda hadda taa marka inay mobilize ku sameeyaan dadkan Soomaalidu u weyn tahay wax ku olka marka waxaan rajaynayaa dadka inaan isu keenno dawladda yiraahdo cabdirasaaq cabdishakuur waxa uu ka dhawaajiyay Saciid in loo baahan yahay haddii la rabo barnaamijkan in la horumariyo in la tiro koob la suubiyo aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee diaspora joogta dabcan roolka dawladda waa loo baahan yahay ila wadanka markii aad rabtid inaad ku laabatid waxyaabo badan oo ku xanibaya ayaa jiro haddii ahaan lahayd nabadgelyadaada haddii ahaan lahayd deegaankii meesha aad degi lahayd haddii diaspora ay diyaariso ama barnaamijkan haddii uu ka soo baxo in la helo aqoon-yahano la helo fankii lagu wadi lahaa diyaaradaha lagu saari lahaa la helo mishaarkooda weli waxaa sii dhiman nabadgelyadoodii waxyaabahooda adiga arrimahaas maxaad is leedahay way ku hirgeli karaan qaab nooce ah ayaana loo wajahi karaa waa maasanta cabdicasiis bismillaah arrinkan hadda laga hadlay oo meesha loo fadhiyay runtii gaar ahaan su'aasha uu walaal cabdicasiis weydiiyey ma ahan runtii mid aad u dhib badan sababtoo ah laba arrimoodba inay iska caddahay waa muhiim number 1 maadaama la yidhi diaasbarihii iyo jaaliyadihii waxay noqdeen macnaha tiro badan oo haddana aan isla socon haddana la raadinayo qaab la isugu keeno ay u noqdaan in yaroo macnaha quality leh waxa aan raadinayna annagoo not quantity but the qualitygiina wuxuu ku imanayaa dad isku hadafa isku ujeeddo ah is aaminsan inay shaqo wada bilaabaan hay-adda IOM oo aan u shaqeeyo aniga waxaan ogahay loogana faa'iideyn karaa hadda arrinkan la wado in aan hayo database inta ku filan gaar ahaan dadka la raadinayo oo ah dadka qualified-ka ah oo inta badan noqday dad miiska hoostiisa ku jira shaqooyin bay Yurub isaga haystaan inta badan active macnaha wadankii xaqiisii markii la yiraahdo nin walba shaqo isagoo haysta inuu shaqadiisa ka tago oo dayaca ma uu rabo aqoonta aan leeyahay macnaha dadka diaspora oo noqda waxa weeyaan in de qof walba horta wuxuu u noqdaa iskiis marka laga reebo dadkan hadda IOM to ay recruit garayso oo ayagu transparency-na si qualification-kooda la fiiriyaa shahaadooyinkooda la fiiriyaa experience-kooda la fiiriyaa dad halkan ka shaqeynaya Europe iyo America inay yihiin baa la fiiriyaa dadkaas marka aan ka soo harnay inta kale waa dad volunteers ah oo ayagu isxilqaamay noqday ujeedooyinka ay u noqdeen way farabadayn sida laga dhawaajiyay I'm not criticizing laakiin waxaan ognahay in badan oo inay u noqdaan uun dano ayagu khaas iyo inay ku helaan position iyo link ay ku galaan dawladihii iyo maamuladii la sameeyay marka waxyaabahaas oo dhan waxa soo afjari kara in information-kan aan haysano looga faa'iideeyo initiatives-kan hadda aan u fadhino halkan oo la develop gareynayo database-kaas inaan la share gareyn karo oo aysan ahayn wax macnaha illegal ah anigu database waxaan hayaa aan sameynay oo ku saabsan dadka qualified-ka aqoonta leh meelaha kala joogaan it's not macnaha wadan kasta laakiin haday noqon lahayd Nordic oo kale haday noqon lahayd xiriirka iyo contactiyada aan la leeyahay dadka aqoonta leh ayagu xiiseynaya barnaamijyadan IOM-ta waxaasna waxay fududeynayaan in la heli karo dadkaas ayaga ah number 2 waxa loo baahan yahay wax xiran gareey
Warsaw waxaan u arkaa aniga in arrimo badan dartood ay fududeyn karto in hawshan halkan laga rangareeyo sababtaan u leeyahay waxa weeyaan jaalidaha Yurubta kale aad bay u badan yihiin badnaantaasi dhinacna waa u faa'iido number badan baa haysataa dhinacna waa u dhibaato waxa badan Soomaalida criticism-koodii is eedeyntooda halkan marka waxa joogta jaaliyad kooban oo runtii ayagu urur kaliya ma baahane waxa awood u heleen oo hadda walaalkii halkan fadhiya Cabdiqaadir dabcan waxaan ka hadlaynaa jaaliyad Soomaaliyeed laakiin waxaan markaan halkan imid ogaaday inuu xukumo oo ajaanibta wadankan Poland joogto dhan ay hoos yimaadaan ururka uu isagu hayo Soomaaliya marka waxay ka tahayba hal firqo marka nin darajadaas ka gaaray isaga iyo community-giisii inay lead gareeyaan organizationadii iyo ajnabiga kale oo joogay wadanka dhan hadda wax kale oo la sii raadiyay male aan waxaan qabaa in laga faa'iideysto fursadaas halkan ay noo noqoto center laga rangareeyo hawshan si markaa at least base-kan uu noqdo base aan la isku haysan oo la isku qabsan oo fududeyn karta in lagu raadiyo dadka kale waxa la raadinayo power ma ahan dadka anagu aan raadinaynana dad power raadinayo raba inay power share gareeyaan ma ahan waa dad u baahan inay shaqo qabtaan oo raba wadankooda si ay u horumarin lahaayeen in la helo xagga dawladda waxaan marar badan ku talinay anagoo dad jaalida aqoon-yahano hadday noqon lahayd organizationno even personal contact aniga aan sameeyay dawladda waxaan kala hadalnay in la helo liaison office xafiis isku xiri kara dadka diaspora qurba joogta iyo dawladdii maamul ahaan ilaa hadda ma hayno laakiin waan rajaynaynaa processka in uu soo galo oo dawladduna ay ku fikirto in la helo liaison office ama xafiis xiriiriya dadka qualified-ka ama ganacsatada ama aqoon-yahanada kala sida doontaba ha noqotee wadankii raba in wax ka qabtaan taasoo fududeynaysa soona afjaraysa markii la helo unity halkan ka jirta oo dadkii ah diaspora iyo dawladdii oo xafiis u samaysay lagala xiriiro in ay yaraanaysaba luuq ka soo gelid iyo been la sheego iyo dad waxaysan ahayn sheegto oo inta ka taga Yurub yiraahdo waxaasaan nahay Yurub waa istaqaanaa America waa istaqaanaa dadka marka waxa la rabaa iswada shaqeynay inay noqdaan dad wada isiyaqaano oo nin walba wuxuu galay iyo wuxuu gudo iyo aqoontiisa iyo kartidiisa la ogyahay marka anigu waxaan qabaa inay arrinkan uu noqonayo arrin miro dhala haddii dariiqyadaas iyo pointiyadaas la raaco insha Allah waa barnaamijkii codka jaaliyadaha waxaan rabaa su'aasha ugu dambayso inaan siiyo madaxa hay'adda Foundation for Somalia Cabdiqaadir Gabayre Cabdiqaadir gabagabadii maxaad bulshaweynta Soomaaliyeed jaaliyadaha Soomaaliyeed iyo guud ahaan aqoon-yahanada Soomaaliyeed aad kula dardaarmaysaa maxaase ka sugaysaa mustaqbalka dhow horta marka hore waxaan rabaa inaan declare gareeyo hal arrin waxa weeye annagu haddaan nahay hay'adda Foundation for Somalia haddaan nahay jaaliyada waddan ku nool reer Poland waxaanu diyaar u nahay inaanu casunno ugu yaraan 60 qof oo waxgarad ah oo doonaya fikraddan aan wadano iyo mid lamid ah inay nagu taageeraan ama iyagu mid ka fiican noo wada oo noo keenaya inaanu ku martigelinno waddanka Poland oo aanu anagu tigidhadooda iyo dejintooda qabno si aanu ay u noqoto wax sheeko TV intay ka baxdo ay u noqoto mid dhab ah inaanu diyaar u nahay 2014ka bilowgiisa inaanu cazno fidna cazumadaas sida walaalkaas ciid sheegana wuxuu hayaa kulay liiskii dadka diaspora jooga kulli umaleyn ma anagu reer Poland inaan ku jirno sababta inaan nool lahayn lama ogaba laakiin inaan intii wax tar leh waddanka Yurub ku nool siiba waddanka Yurub markaan xoog saaro waxaan u nahay inaan martigelino si aan u fududeyno kulanka waxaanu diyaar u nahay inaanu barnaamijka qaybteena ka qaadano diyaar gareynta anu waxaan markaa anagu xoog saarnay anagu markaanu qaadano arrimahan soo dhaweynta iyo waxaas Cabdi Fataax iyo kooxdooda inay qaataan secretariatka diyaar gareynta ajendayaasha wax laga hadlayo kulli hawsha waa in la kala qaybsadaa taas maxaan uga dalneenahay waxa weeye wali inaanu wadno niyad samida inaanu u bilowno ila wax walba biloway u baahan yihiin lacagtan aan bixinayno ku tala galayno waa lacag hadaanu doon intaanu account ku ridano aanu iska cuni karno ama dadkeena u dirsan karno laakiin waxaan u sameeynaa waxa weeye inaanu talaabada aan ficil ahaan u qaadno taana waxaan rajaynayaa waliba ku darayaa rag badan oo ay rag reer Finland iyo ninka la yiraahdo Cabdi Rasaaq oo reer Holland inay dhigta si fiican ugu dhigaan reer Poland waxay diyaar u yihiin inay inta sameeyaan
iyagana inaanu ka doonayno intii oo kale wax u dhigma inay qaadaan oo ficilku uu yahay inay dadkii raadiyaan inay waxna la qabtaan midda saddexaad waxaa xaqiiqo ah haddii la helo niyad sami iyo dad u soo jeeda annagu hadda ma raadinayno soomaalinimo waxaan leenahay soomaalinimada hadda jirta intaanu haysanno aanu ilaashanaysa madama naga dhicine taasaana keenaysa marka inaannu wax walba geyno gaalada aanu maalin walba la kulmayna la noolnahay dadkan aan la noolnahay ajnabiga la noolnahay waddankooda ugu nimid oo aanu maalin walba ka iibinayno Soomaaliya annagoo og dhulkeenu inuu baabacsan yahay haddana leenahay waa meesha ugu wanaagsan meeshaas oo meel lacag gashan karto sababta waxa weeye waxaan doonaynaa in Soomaaliya ku soo noqoto sideedii hore waxaan doonaynaa carruurta aan dhalle kuwii sii dhaleen si degdeg ah inay ku gaaraan horumarka masayrku wuxuu naga gaaray markaan aragno wax fiican oo meelay waxaan maxamed loo geeyo hadda maan geysano maan samaysano marka dad waxaan warheede naloo geey inta ka baxno warragan aan ka barana waxan marka waxaan qabaa anigu haddaan reer boolanahay aad baan ugu faraxsanahay nimankan walaalahay ijaabada iyo inay aqbalaadina aqbaleen casuumadeena waxaan rajaynayaa mar dhow arintan inay wax go'aan cad ka soo baxdo ilaahay waa mahadsantiin daawadayaal intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii codka jaaliyadaha oo Somali National TV xilligan idinkaga soo gudbinaya waddankaasi Poland caasimadiisa waddankaasi Warsaw barnaamijkan waxaa soo saaray Cabdicasiis Goodax iyo Taajirow oo labadaba ah laba qofood oo ka kala shaqeeya telefishinka qaranka Soomaaliyeed ee waddanka xarumihiisa waddanka Holland iyo Finland daawadayaal barnaamijkeennii intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa waa anigoo ah Cabdicasiis Goodax Barre sidaas iyo kulanti dambe oo wacan